bal waxaad ka fikirtaa oday waalida oo faraxsan oo ilaahay u mahad celinaya qoslaya iyo caruurtiisa oo intay geesaha ka istaageen waa lagu dhacay doqon baa tahay lacagtaadii waa la qaatay waxa maadan faa'iidin say soo qaban kartaa marka waalid faraxsan oo ilaahay u mahad celinaya iyo awlaadiisii oo ku dhaliilayso leh hantidaadii waa la dhacay caqlina ma lihid kisadana raba marka in yar inaan wax idiga sheego iyo waxay xambaarsan tahay laakiin waalidow muuqaaladan saad u hesho fadlan follow de like na de legacy it shines so bright a rising star in the endless night from roots so deep to skies so high our name will echo it will never die. بسم الله والحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وبعد والد بوها odaygan isagoo jidka marayo shaqada ka yimid guriga u socda baa wuxuu jidka ku arkay islaan ooyeysa ilmana saa u haysata markaas ay ku soo dhaqaaqdo waxay ku tiri walaalow ilmahaygan wuu dhimanayaa shilin aan ku geeyo isbitaalka ma hayo shilin aan taxi ku raaco ma hayo shilin aan ku daweeyo ma hayo shilin aan dawo ugu gado ma hayo ilaahay baan kugu dhaariyay icaawi waa waalid odaygu aad buu intuu u naxay uu gariiray yaa $1,000 oo kaash ahayd oo jeefkiisa ku jirto gacanta ka saaray uu yidhi allah ilmahaaga kuu badbaadiyo carar dhakhtarka aad guriguu yimid isagoo aaminsan hawl khayr badan inuu qabto ilmo badbaadiyey dhiman lahaa caruurtiisii buu sheegay maxaad ku garan marka dhallinyaro qurbaha ku kortay oon garanayn waalidku wuxuu wax ku cabirayo oon garanaynin waalidka iyo xanuunka fuuli kara ilmihiisu markuu xanuunsado ee uu dhimanayo qof wax dhalaa la weydiiyaa laakiin qof la dhalay la weydiin maayo arrinka markuu u sheegay waxay ku yidhahdeen dad you have been fooled aabba waa lagu dhacay caqli malid lacagtaada waa la qaatay lacagtaada iska daadinaysaa way aad saa u samaysay isna wuxuu leeyahay waxaan qaban lahaa wixii u fiicnaa baan qabtay maanta naf inaan badbaadiyey iyaguna way ku dhaliilayaan isna ilaahay buu mahad celinaya oo qoslaya muddo kadib idaacadda local newskoo shidan baa waxaa ka soo baxay war odhanaya biliisku waxay hadda qabteen islaan ku qaraabanaysa ilmo aan xanuunsanayn iyadoo dadka kule intay isku oyso ilmahani wuu dhimanayaa ee wax isii islaantii waa la xidhay ilmihiina bilayska ahaya waa ilmo caafimaad qabo qoslaya ilmihii marka meel jaagan iska ciyaaraya bahal afka ku haysta oo waxba qabin islaantu markay ku qaraabanaysa caruurtu marka maxay abood ku yiraahdaan we told you you have been fooled aabba waan kuu sheegnay adun baa lacagtaada lagaa dhacay is up to you waad khasaartay aabahood intuu aad u farxay uu dhawaaqo yiri allahu akbar alxamdulillah warkii u fiicnaa ee weligay idaacad ka maqli lahaa yaan maanta maqlay maxaad maqashay inaaba lacagtaadii waa la dhacay wuxuu yiri but the baby is not dying laakiin ilmuhu ma dhimanayo waxaan markii hore lacagta u bixiyey in la ooyayey ilmaha inaan badbaadiyo lacagtu qiimo iima leh laakiin inaan ilmaha dhimanaya badbaadiyaan u bixiyey taasaan ku faraxsanaa hooyadaa la qabtay danka malihi beenteedana danka malihi laakiin ilmihii sabiga ahaa ee quruxda badnay halkaa ku haysay ee qalbigu ila xanuunayeen lahaa wuu dhimanayaa inaan maanta arkayadu leeyahay islaantaa been sheegaysa laakiin ilmahani ma dhimanayo waa ilmo fiican oo caafimaad qaba oo bahal afka ku haysto iska ciyaarayo qoslaya war iiga farxad badnaa weligii ima soo marin buu yidhi maxaa loola jeedaa qisadan waalidku mar walba wuxuu ku farxaa badbaadada awlaadda waalidka mar walba waxa hurdada u keena ee deganaanta u keena ee qosolka u keena waa inuu awlaad badbaadiyo waa inuu ilmo koriyo waa inuu wixii saxda ahaa sameeyo kuwan la dhalay ma garan karaan marka waxa kaliya arkaan waa waxa xisigeeha u muuqda all they know is this materialistic world marka $1,000 yaa baxay intaasay u taagnayd waalidkan lacagta wuxuu u bixiyey markii hore maxay ilmaha inuu badbaadiyo markii dambe caruurtiisoo ku dhaliilayso lacagtaadu baad khasaarisay idaacaddu markay tiri islaam been sheegaysaa la qabtay ilmuhu waa fiican yahay waa caafimaad qabaa aad intuu farxiir alxamdulilah ilmahaan arkay hadduunan dhimanaynin $1,000 kama fikirayo islaamtan la xidhay kama fikirayo iyadaa lafiyada been u sheegtay ilmahaas inuu badbaaday uusan dhimanin ayuu ku farxay ilaahay awlaadeenna ha fahamsiiyo waalidku wuxuu fahamsan yahay ilaahay waalidkeennana ha ka jaza siiyo oo jannaha ugu bedelo dareenka quruxda badan ay xambaarsan yihiin ee awlaadda oo dhan inay badbaadaan ay u xambaarsan yihiin klibka sheergaray allah idin barakeeyo From roots so deep to skies so high, our name
die.